السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا جمعة وناكسن إلهي سبحانه وتعالى جمعة دي صدحاد وإيه رمضان كا إلهي سبحانه وتعالى خير كذا هنسيو بركة هذا الله هنسيو إلهي سبحانه وتعالى قوة مقبولين تاه لا أقبله إلهي هنقدره إلهي سبحانه وتعالى قرتنا النار تهك حريو إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرينا أنك إيو والدينتين إيو ذريتين إيو أزواجتين إيو لما المسلمين إلهي سبحانه وتعالى قرتنا النار الله كحريو إلهي سبحانه وتعالى بشان رمضان أن كل حجرنه ما أنت كلا برجارتي إلهي الباب الجنة أيوفره bisha bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda albaabada jannadu way furan yihiin albaabada naartuna way xiran yihiin taasuna waxayna tusinaysaa in raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sii ballaariyo bisha soonka raxmaddiisa oo ballaaran mar walba oo wax walba deeqday ayuu haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala sii ballaariyaa maalinta jimcaduna waa maalmaha midda ugu fadli badan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu geliyay saacatu lijaaba ramadaankuna ama soonkuna waa waqti ijaabo isaguna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan addoommadaydu hadday kaa weydiiyaan oo ay ibaryaan waan u dhowahay u sheeg saasaa leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam qur-aankana ku qoran marka waxaa isku soo darsamay jimcihii oo maalin wanaagsan ah waqti soon oo lagu jiro haddana maalinimada jimcada waxaa ku jirta saacatul ijaaba oo weliba gelinka dambe ayay culimmadu u badinayaan inta aan qoraxdu dhicin aan ka faa'iidaysano marka asxaabay aan ducaysano oo ducada badino nafteenna wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad jeceshahay oo aad alle subxaanahu wa tacaala ka rabto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu bixiyaa ama adduunka lagugu siini ama aakhira lagugu siini ama waa laguu soo dedejin ama waa laguu dibdhigi laakiin mar walbaba waa la ajiibayaa ducadaada marka aan ducada badino aan ilaahay subxaanahu wa tacaala barino ummadda muslimka ee soomaaliyeedna aan ilaahay u barino oo masaakiinta ah ee iska dhiban ee adduunkan ku dhiban iyagana aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u barino ummadaas soomaaliyeed inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ka dulqaado dhulkooda nabadgelyo iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigo ilaahay isu soo ururiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkooda akhyaarta ahna talada ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkooda khayr iyo barwaaqo way ka buuxdaay kuwa la soo baxa oo maamusha oo ka dherga oo dadka kalena wax ka siiya إلهي سبحانه وتعالى إنه كدقوا أوسلن سيو توفيق الله والنوافجي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم